Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa meertada nolosha ee geela. Geelu waxay ka mid yihiin boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda ah, gaar ahaana bahweynta naasalayda. Geelu waxay ku jiraan jilibka hoose ee qoyska geela Camelida. Bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeeraan Camelus. Geelu asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa waqooyiga Ameerika, inkastuu xidhiidh dhow la leeyahay Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika. Guud ahaan, geela adduunka ku dhaqan waxaa loo qaybiyaa laba nooc, kuwaasoo kala ah mid hal kurusla ah dromedary camel iyo mid laba kurusla ah Bactrian camel. Sidoo kale waxaa jira nooc geela ka mid ah oo aan lahayn kurus, kaas oo aad u gaaban kuna nool koonfurta Ameerika. Geela Soomaalida waa hal kurusle. Waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan dhulka Soomaaliyeed geelka jooga in uu yahay 7 milyan. Guud ahaan adduunka oo dhan geela ku nool waxaa lagu qiyaasaa 35 milyan. Luqadda Ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa geela camel. Af Carabigana waxaa lagu yiraahdaa ibil. Af Soomaaligana waxaa lagu yiraahdaa oo dhammaanteen u wada naqaanaa geel. Geelu wuxuu yahay boqorka xoolaha ee Soomaalida. In geela la dhaqdo wuxuu soo bilaabmay waqti aad u fog oo lagu qiyaaso xilligii Nebi Saalax calayhi salaam, waxaana taariikhyahanadu yiraahdeen in geela la dhaqdo waxa ugu horeeyay Nebi Ismaaciil calayhi salaam. Meertada nolosha ee geela. Geela waxa uu dhalaa ilmo u eg. Muddada uu ilmaha wadana waxaa loo yaqaanaa sid. Geela sidkiisu waa 13 bilood, 390 habeen. Ilmuhu hasha wuxuu nuugaa ugu badnaan 2 sano. Soomaalidu geela da' walba oo uu marayo waxay ugu yeeraan magacyo khaasa oo uu leeyahay. Ramad, geela markaa dhalay. Hotanuug waa ilmaha yaryar ee geela. Nirig waa geela yar ee didiga ah ee aan weli curan. Qurbac waa awrka yar ee aan weli la raran. Qaalin ama qaan. Hal waa geela didig. Awr waa geela kiisa labka ah. Geela iyo suugaanta Soomaalida. 1. Waxtarka dhaqaale. Caanaha, hilibka, gaadiidka iyo adkaysiga. 2. Waxtarka bulshada. Magaca iyo sharafta. Yaradka, magta, toleyda. 3. Dhibaatooyinka geel dhaqatada. Dhibaatooyinka jidhka, cabsida, colaadda iyo dhaca. 4. Dhaqashada geela. Dhaqidda geela iyo jacaylka geela. Faa'iidooyinka caanaha geela. Caanaha geela waxay hodan ku yihiin birta ama iron-ta, vitamin C iyo 200 nooc oo borotiin ah. Caanaha geela waxa ku yar subaga iyo lactose-ka. Caanaha geela waxay ka hortagaan hargabka xumaada, beer xanuunka, dhiig yarida. Soomaalidu geela way qaybisaa, waxayna u kala qaybisaa ilaa 30 nooc. Noocyadaas ayaa lagu kala gartaa ma geel waaweynba mise geel yaryar, ma caano badan yahay mise caano yar yahay, ma caano macaan yahay mise caano dhanaan yahay, ma dhogor qurxoon yahay mise ma dhogor qurxoona. Soomaalidu xubin kasta oo uu geelu leeyahay magac ayay u leedahay. Sawirkan ka akhriso magacyada ay Soomaalida u leedahay waxa ka soo baxa xubnaha geela. Midabyada
geelu yeesho halkan ka akhriso cida ama codadka uu geelu sameeyo xaqiiqooyin ku saabsan geela kuriskiisa waxa uu kaydin karaa 9 gaaloon oo dufana geela waxa uu cabbi karaa markiiba 40 gaaloon oo biyo ah geela waxa uu socon karaa 40 mayl saacadii geela waxa uu dhererkiisu gaaraa 2 ilaa 3 mitir geela miisaankiisa waxa lagu qiyaasaa 400 ilaa 600 oo kilogram geela waxa uu maalintii qaadi karaa 400 oo kilogram oo culays ah wuxuuna sidi karaa 25 mayl maalintii isagoo sida culayskaas da'da geelu waxa ay gaari kartaa 40 ilaa 50 sannadood kulaylka ama xumada jirka geela waxay gaadhaa 35 ilaa 40 digrii waxa lagu qiyaasaa dhammaan adduunka oo dhan inay ku nool yihiin 35 milyan oo geelu waxa uu ku xusan yahay quraanka kariimka ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat sadaqa Allahu al-azim ilaahay wuxuu ina weydiinayaa ama ina su'aalayaa dadku bili aadamka ahi miyayna eegaynin geela siduu yahay waxaana looga baahan yahay markaa inaan baarno sida uu u nool yahay inta uu la eg yahay iyo inaan wax ka baranno waxa uu geela yahay waxaan rajaynayaa inaad fiidiyogan wax ka faa'iiday waxaanan iniga tegayaa iftiimi mustaqbalka ilmahaaga وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر